الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqadeediyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqadeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya baa leeyahay qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir ma aha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimadu yiraahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad buu bilaabaya qalbigiisii buu shaydaanku la tagaya dadna uu ka soo celinaya haddana uu la tagaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimid in ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhiman ilaahay waa ka cafinaya baa la yiri salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada istaciinu bis-sabri was-salaa waa kuwa maaragtaani xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrin ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordaya hadday ciideeda iyo dayaxa isbedel ku dhaco salaad baa loo jideeyay hadday abaari ay timaado salaad baa loo jideeyay hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyay hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyay hadday muraad iyo xaaje yeeshaan salaad baa loo jideeyay hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat al-istikhara loo jideeyay istaciinu bis-sabri was-salaa duulka afraad waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayad noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaadu nabigu yiri arixna biha ya bilal kaco salaada noogu ku raaxaysanna hubbiba ilayhi min ad-dunya thalath adduunka waxa yaala saddex baa aniga la jeclaysiiyay buu rasuulku yiri waxa la jeclaysiiyay atiib waxa li wixii udugay udgoon والنساء هوينكن waa jeclaysiiyay waj'alat qurratu ayni fi as-salah halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayana salaada laga yeelay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyagu in salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyada ay ka tagaan nin culimadii salafka kamid ahaa ayaa mar alle markuu salaada xidho thabit al-bunani baa loo jiray abu muslim rahimahullah waxa lagu yiri salaadana tukanaysid anaku waan laanay saad ku heshaadigu salaadan mar alle markuu salaada tukanay ilmada ka daadanaysa wuxuu yiri kaabatu min ajli salati li 20 sana wa tan'amtu biha 20 sana buu yiri salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaaro 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sana waa ku raaxaystaa buu salaadaas